xawaalada maalsam waana xawaalad degdeg iyo ammaano leh oo meel kastoo aad joogtaan ehladiina gaarsiinaysa lacagta aad u dirtaan ballanteennuna waa maalsam.c waa xawaalada maalsam meel kastoo aad joogtaan midigtiina maalsam ayaa taagan nabaday dhageystayaal waa mar kale barnaamijkeena toddobaadka iyo siyaasadda waxaana idin daadihin doonta anigoo Nimca Sagal Xaajiya halka aad nagala socotaana waa Radio Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada Gothenburg waxa qaybta telefoonka marti noogu ah gudoomiyaha jahliyada Soomaaliyeed Cabdi Xaashi Cawaale oo ku sugan magaalada Oslo iyo waliba Jeynaali Sheekh Muxyidiin iyo Cabdi Cali Aways oo labadooduba ah مسؤولين سياسات أو كسوغن مجالات أصله لما أنتي وحكوسو دواتان برنامج كينن مانتا ودونا هاي ونعيم آدبان ودونا هاي راديو سومالوين غوتنبرغ آدبان نيجا هاد علينا مقال في عن واجرا سوماها سفي عن بانكو مقلنا عبد حاشي كسو دواد مر لباد iyo mar saddexaad ba راديو سومالوين waa maasantahay walaal aad iyo aad baad u maasantahay anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha jaariyada midowga Norway Soomaaliyeed ee Norway aad baan iniga mahad celinayaa sida wacan ee aad mar walba u daadiyeen bulshadana wax ugu sheegtiin waan leenahay raadiyaha ma sha Allah waxaan leenahay guuleysta walaal aad iyo aad baan anaguna kaaga mahad celinayna adiga iyo inta kale ee nagula sugan barnaamijkan ay nagala qayb qaadanaysa in hadii aan su'aalaheena aan ku horeeyaan adiga ahaan kugu horeeyo عبدي بل واحد هرتو ربحين كوبان naga siisaa shirki ka dhacay dhawaanahan ka socday magaalada Muqdisho shirkaasi qudhigiisu muxuu daaraa walaal shirki ka dhacay magaalada Muqdisho beelaha Soomaaliyeed beel kamida oo beel aad u weyn oo sumcadna kule awoodna kule ay ka qabatay magaalada Muqdisho runtii waa shir in muddo la sugayay dhinac farsamo u baaqday marar badan runtii shirkaas oo ah ay ka talinta beesha nabad ku soo dabaalinta Soomaaliya siyaasadda Soomaaliya oo akiro si jiidanaysa marka shirkaas wuxuu ahay runtii shir beelad buu ahay laakiin siyaasadana kama marneen walaal iyo ayatinka wadanka Soomaaliyeed meesha uu gaari doono hadii rabiidmo waa hagaag طبعا shirkaas waxa achiibay beelo badan oo iyaguna ka tirsan dalka Soomaaliya bal adoo noo faahfaahinaya shirkaas iyo madaxdii ka soo qayb gashay walaal horta shirkaan run waaye beelo badan oo Soomaaliyeed oo runtii ka qayb galay way jiraan kuwa lagu casuumay iyo kuwa hadda shirku uu sii soconaya shirku hadda kaliya ma aha laakiin gulaanadkii iyo communicatekii waa la soo saaray shirku micnihiisuna wuxuu ahay walaalow in ay beelaha Soomaaliyeed balorto isku wareystaan beeshan arrimaheedana looga hadlo waxa ka soo qayb galay haddaan ku carabaabo rag siyaasiyiin rag mataqaana safiira xildhibaano wasiiro hore madaxweynayaal hore iyo rag Soomaali mataqaana title walba ka soo qabsada dawladda Soomaaliyeed hatta safiir ayaa ku jira marka rag iyo dumarba ma loo kala maqleen shirkaas iyo dhalinyarada iyo dad mas'uuliyiin oo aqoon-yahano ama professor aad baad u mahadsantahay Cabdi Xaashi adigana waan kugu soo noqon doonaa bal waxaan ku soo dhaweynayaa khadka telefoonka Jeynaani Sheekh Muxyidiin ku soo dhawow Jeynaani barnaamijkeena toddobaadkiya siyaasadda may maqashaa Jeynaani si fiican ku maqlaa mar labaad iyo mar saddexaad ba waxaad ku soo dhawaataa barnaamijkeena toddobaadka iyo siyaasadda oo naga dhageysanaysaan Radio Soomaaliyeed xaruntiisa magaalada Gothenburg oo maanta qaybta telefoonka aad marti noogu tahay waad la socotaan u maleynayaa hadda waxaan wada hadlaynay oo warbixin kooban naga siiyay sidoo shirka madulood beelaha madulood u dhacay ee magaalada Muqdisho dhawaan ka socday bal hadii aan adiga qudhigaaga su'aal lamida ku weydiiyo maxaa sideed u aragtaa shirka madulood ee ka dhacay Muqdisho marka hore walaal aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay adiga iyo teamkaaga Soomaaliyeed aad u mahadsantihiin idinkana mahad celinaynaa sida waafiga ah aad u wanaagsan aad bulshada ugu soo gudbiseen waxyaabaha ay u baahan yihiin oo dhan walba ay naqataba dhinaca siyaasadda iyo bulshada iyo intaba tan kale shirkaas madulood waxa qabsaday horta beel weyn oo la yiraahdo beesha madulood la yiraahdo beeshu waxa waaye dad badan shirka laga yaabaa inay qalad u fahmaan amba si qalooca ay u arkaan shirkaas horta ma ahayn shir beelo Soomaaliyeed ama lagu culaadinayo ama lagu xumaynayo si qalooca loo loogu dalaay ma ahayn
shir dowlad in lagu dumiyo amba mucaaradnimana ma ahayn shirkaasi wuxuu ahay shir beesha mudulood ay u qabatay dhismaha iyo maxaan ku iraa wanaajinta dowladnimada iyo dalka Soomaaliyeed waxaan hadafkiisu uu ahay marka ugu horeysa in la helo mudulood waxa waaye gogosha Soomaaliyeed waaye maadaama ay caasimadii degan yihiin sidaas daraadeed wuxuu ahay shir la rabay in lagu wanaajiyo gogolnimada loogu talagalay horumar wanaagsan in maxaan ku laga gaaro dhan walba saldhigiisuna uu yahay beeshaanu inay marka hore ay hesho xuquuqda iyadu ay leedahay iyada iyo beelaha la degaba ay ka hesho maxaan ku iraad dhinaca dowladnimada oo dhinaca federaalka xuquuqda ay ku leedahay ay ka hesho salka iyo gunaanadkuna uu yahay in la helo maamul madax bannaan oo dadkiisu ay doortaan oo xuquuqdooda codeed ay ku doortaan oo iyaga matala in loo helo gobolka Banaadir in loo helo insha Allah ta'ala markay fiicana ka soo baxay arrimihii maxaan ku iraa hoose sida hawshaas lagu gaari lahayn gudiya loo saaray iyaguna maxaan ku iraa gudiyada soo ka soo shaqeyn doona shirkaas marka waxaan u aragnaa inuu yahay shir aad u wanaagsan lagu wanaajinayo maxaan ku iraa dowladnimada iyo maxaan ku iraa horumarka dalka iyo Soomaaliyeed cidii ugu qabtay oo aragtay in wax gaar ah dad lagu dulminayo amba dowlad lagu dulminayo waxaan leenahay yaayna qaladka sidaas u fahmin dadkan maxaan ku iraa mudulooda shirka qabtay marka dad sidaas ay ahaayeen waa beel weyn waa beel dhaqaale leh aad baad u mahadsan tahay bal haddii aan u wareejiyo axmed cali aways bal khadka telefoonka isna qudhigiisu barnaamijka nagala qayb qaadanayay ahana xildhibaan Soomaaliyeed oo ka tirsan xildhibaanada Norway axmed cali aways waxaad ku soo dhawaataa radio Soomaaliweyn waa dhawahay naciimo waana ku salaamahay adiga iyo bahda saxaafadda Soomaaliweyn aad iyo aad baan sidii rag hore ku mahad celiyeen la qaba mahad celintaas iyo dadaalka aad haysaan intaba annaguna sidoo kale waanu kaaga mahad celinaa waqtigaaga quruxda badan ee nasiisay waxaan filayaa barnaamijkeenu maanta waa barnaamijkeeni toddobaadkii siyaasadda oo ku eegaynay shirkii dhawaan uga socday magaalada Muqdisho beelaha mudulood bal haddii aan haddaba su'aalaheena aynu hore ugu sii wadno waxyaalihii ugu muhiimsanaa aynu odhan karna shirkaa uu ka soo baxay maxaynu odhan karnaa shirkaas horta wuxuu ahaa sida ragga hore sheegeen shir muddo shir la sugayay oo looga hadlayay masaaliixda dadka Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan si gaarana yani loo beegsanayay beesha mudulood oo ah beesha ugu deegaanka badan balaaran koonfurta Soomaaliya dad ahaanna ku hareeraysan deegaanka magaalada Muqdisho gobolka Banaadir iyo gobolada Shabeellayaasha inta ku hareeraysan ilaa iyo bartamaha Soomaaliya mudug laga gaaro marka shirkaas marka ujeedada ugu weyn ka soo baxday waxay ahayd horta in la yeeleelo Banaadir state waxa la yiraahdo communicate ka mid buu ahaa dad badan oo Soomaaliyeed oo gobolka Banaadir iyo deegaanadaas aan sheegay degan baan arrintaas aad iyo aad ugu soo dhaweeyay oo arkay in xal u tahay ummadda Soomaaliyeed in deegaan walba uu yeesho maamul dadkiisu ay soo doortaan oo federaalka hadda Soomaaliya ay ku shaqeysaa marka waxa ka soo baxay waxa kamid ah dib u heshiisiin dadka Soomaaliyeed inay u qabtaan gogol ay u noqdaan sida horeba gogol ay ugu ahaayeen barnaamijka gobolka Banaadir inay meel mariyaan sida ugu dhaqsiya badan dawladda Soomaaliyeed inay isbarbar taagaan oo dhibaatooyinka dawladdu hadda xamar fadhida Muqdisho fadhida laga sheeganayo gaar ahaan jidgooyada iyo burburinta iyo beegsashada dadka ka soo jeeda deegaanadaas oo degan xamar in la joojiyo lafteeda qodob uu ahaa waxa kale oo ahaa qodobka kale ahaa iyadoo aan mucaarado ahayn dadka qaar baa waxa arka mucaaradadu inay wax dibiso mucaaradadu waxbay toosaamaa waxba dibiso mid aan qori wadan marka waxaan leeyahay anu arkaa shirka halkaas ahaa inuu ahaa shir guuleed waana u hambalyeynaa waana la sugaayay waxaana la sugayaa ballanqaadyadii ay qaadeen inay meel mariyaan bay u fadhiyaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka degan Muqdisho iyo deegaanada kale Soomaaliya xamar waa xuduntii Soomaaliya weyn Muqdisho dadkana waxa iskaga qaldan gobolka Banaadir iyo Muqdisho waa institutionka dawliga sida meel walba oo adduunka ka jirta laakiin gobolka Banaadir dad baa ilaahay ku beeray dad baa majority
inay maamul ayagu ay leeyihiin samaystaan waa waajib lagama maarmaan weeye yani waxyaabaha muddo dheer la sugayey oo xambaarsanaa shirkaanuna waxay ahayd ee aad uga muuqanaysa waxay ahayd oo siyaasiyiinta faraha badan ay ka hadleen iyo dhaqanku intaba in la helo banaadir state in la helo dowladda Soomaaliyeedna ay qayb ka qaadato facility ay noqoto sababta socota waxay hadaan dhex galo magaalada Muqdisho dhibaatooyin badan baa ka jiray dhowrkii sano soo dhaafay ha noqoto Ahmed Wacays haddii aan su'aasha qudgeeda aan wax kaasi weydiiyo in Muqdisho beelaha mudulood oo kaliya ma ku koobna waxa degan beelooyin badan dad 4 milyan ku dhaw oo Soomaaliya baa degan maxaa keenay markaa in markasta oo shir ay qabsanayaan ay beesha mudulood lagu soo koobo amba magac erebixin kale loogu sameey waayo la oran waayay beelaha magaalada Banaadir amba beelaha Muqdisho ku nool horta gobolka Banaadir waxa dadka degan waxay yihiin laba qaybood weeye dadka raaxamarka oo isugu jira shimbuliga iyo dadka cad oo minorities iyo dadka hawiyaha oo majority hawiyaha marka waxa hormood u ah beesha Hiraabba hormood ah Hiraabna waxa hormood u ah beesha mudulood mar haddii gobosha ay dhigtay beesha muduloodna waxay tahay gobol hawiya dhigay weeye macnaheedu maaha gobol ay dhigeen mudulood kaliya haddii marka magac bixinta loo daayo beesha mudulood way ku filan tahay inta way ku filan tahay beelaha kale oo degan oo ku abtirsada beesha hawiyana qayb bay ka yihiin wax gobosha loo dhigayaana way ka hormariyeen marka hore waxa sheegay in Hiraab ku hormarinayaan hawiya ku xijinayaan qabaa'ilada kalena ay u yeeri doonaan mustaqbalka marka wax dhibaato iyo wax cudada midna kama ay jirto in magaca mudulood ay sidato talabixinta laga talabixinayo dhismaha gobolka Banaadir waa hagaag haddii aan wali ku sii socono su'aalaheena Ahmed Wacays aan ka weydiiyo hal su'aal oo kale Muqdisho maadaama ay degan yihiin beelo badan arinta qudgeeda ma laga hadla si fiican baa looga hadlay dadka degan oo saamileyda ka Muqdisho waxay ka mid yihiin dadka gogosha loo dhigayo wayna soo dhaweeyeen oo wada arkaysay hogaanka beesha Habargidir inuu taageeray oo yaqaan qaybta labaada dadka shirka qaban qaabiyana way cadeeyeen oo waxay ku cadeey manifestooda ku cadeey inay beelaha degan Muqdisho oo dhan ay ka mideysay maamul ay mideysay la dhisayo qofkii hal ku lahaan doona iyo qofkii 100 ku lahaan doona waxa la gaari doona markii la gudo galo laakiin dhammaan dadka degan Muqdisho waxay ka mid yihiin shirkaas ay waxa uu ahaa bilow wanaagsan buu ahaa dhameystirka waa suuqina insha Allah aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa Ahmed Wacays oo khadka telefoonka naga soo beeray magaalada Oslo iminkana qaybta telefoonka waxaan ku wareejinayaa Cabdi Xaashi Xawaale oo ah gudoomiyaha midowga jaaliyada dalka Norway Cabdi Xaashi ku soo dhawow mar labaad waad maasantaa walaalnimo aad baad iyo staafkaaga aad baad u maasantahay haddii aan su'aal kale aan ka weydiiyo maxaa ka soo baxay shirkaas aynu oran karnaa wallahi hadda waa iska hordhac oo shirku wuxuu dhamaaday dhowr cisho ka hor runtii waxa ka soo baxayna waxay ahaayeen in ay mataqaanaa dawladda aan cadow lagu ahayn dawladdu qof walbana dawladnimada uu rabo laakiin dawladduna xadkeeda inay dhaafin ama green line-kii loo sameeyey inay dhaafin waxa ka soo baxay qodobo ah in dadka Soomaaliyeed walaalo laga dhigo in la heshiisiyo in mataqaanaa haddana beeshu ay sheeganayso in dhinaca cadaaladdan ay ka tabanayso mataqaanaa dhibaato oo dhinaca dawladda ah iyo dhinaca xuquuqdii dadkii shaqaynayo ama sarkaal ha noqoto ama wasaaradda ha noqoto in dad badan shaqadii laga eriyay marka waxyaalaha noocaas oo dhan waxyaalaha ugu waaweyn bay ay ahayd oo keeni kara kacdoon keeni kara mataqaanaa dhibaato waxay dhahan canshuur bixiyo waa annakay dhaheen dhagaxa wuxuu ku oodayana waa annaka wax dhibka gaarka loo geysanayo waa annaka marka runtii waxyaalo badan oo la taaban kara ayay soo sheegeen marka waxaas haddaan wax laga qabanna waxaan qabaa inay horseedi karto waxyaalaha hadda aan la filan karin ama kacdoon ha noqoto ama dawladdii oo mataqaanaa degaankii laga nacay ha noqoto walow hadda aynan muuqan oo dadkan dawlad ku nool ay yihiin ay soo dhaweeyeen laakiin ay welina dhibkii u adkaysanayaan dhabarka ay saaranayaan maalin walbaba canshuurtii waa iyaka wiilasha dhimanayaan waa iyaka dadka mataqaanaa xaqdarrada lagu sameynaa dhinaca cadaaladda waa iyaka dadka la xirxiraya waa iyaka Soomaalida waa la xiraya laakiin Cabdi waayo dadka la leynaya iyaka ah yaa yihiin dadka marka la halbeegsanaya lagu leynayo maxaa loo leynaya marka aan caynkeeya walaal dadka waxa loo leynaya ama shaqada looga eriya marka runta rabto meeshii waxa timid cadaalad darra timid in dadkii la iska xirxiranayo in wiilashii bajaajka la dilayo u shaqo tagay dadkan awalba dadka laga ooday irsaaqada u raadinayo familkoodii in dukaamadii furnaay canshuur baada keena la leeyahay shabaabkuna canshuur uu qaado
ayakuna ay canshuur qaadaan laba canshuur meesha waad u jeedaa waxaynu hore u ogeyn cabdi xaashi cawaale hore waxaynu ogeyn iyada oo tan bajaajta amba dhalinyaradan ku shaqaysataa ku xoogsataa ganacsigana kasoo saarataa bajaajta iyo haddii ay tahayba waxyaalaha kalead sheegtay iyo cashuurtan aad leedahay al-shabaab baa ku laba jibaaraysaa hore dowladan maxamed cabdulaahi farmaajo ka hor way jireen arrimahan iyo arrimo ka badan oo la xidhiidha ma wax cusub oo hadda kusoo biiray baa in la halbeegsado dadka qaarkood walaal sidaan maqalka aan ku maqlayno maadaama anakuna siyaasiyiin aan nahay dalka aan ka warqabno xataa aan hay-adihii mataqaana caalamiga xuquuqul insaanka aan la hadalnay waa wax cusub walaal dowladii xasan sheekh ma jirin shabaab dekad lacag ka qaada ma jirin shabaab mataqaana guryaha la kala gadanayo ama guryaha la dhisayo lacag ka qaada shabaab meheradaha lacag ka qaada ma jirin wax iska tuugaho yar waa dhici kartaa oo dadka baabuurta ay canshuuraan meelaha ay joogaan laakiin tan maanta UN baa sheegay hay-adihii xuquuqul insaanka sheegay Mareykanka baa sheegay in shabaabku ay canshuur joogtaa sidii dowladii ay qaadaan oo markabka yimaada manifestada ka soo degta ama alaabta adiga ku soo degayso konku way ogyihiin markaas waxay tahay dowladii waxa isku milmay iyo hay'adii dowladii shabaabka isku milmay oo ninka dekada jooga ee customka wuxuu siinayaa magacaagii iyo numberkaagii iyo alaab inta lagu sido ama material ama accountiga lagu sido wuxuu siinayaa shabaabkii kabacdina shabaabku ayagu halkooda joogay wuxuu ku leeyahay alaabtaas lagu sidaa noocaasa wanaad diibta inta waxay waana $100,000 baa wadataa $6,000 ayaan ka rabnaa numberkaas ku soo tuur marka wax qarsoon ma walaal gaaladii baa sheegaysa hay'adii caalamiga sheegaysa aad baad u mahadsan tahay cabdi ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu inaga dulqaato masiibadan dhammaan ummadda Soomaaliyeed ku habsatay haddii aan su'aalaheena wali ku sii socono shirka waxyaalihii ka soo baxay dowladda federaalku ma ka hadasho walaal wali kama hadlin shirka waxyaalihii ka soo baxay iyo waxay u gudbiyeen dowladda federaalka ma ayna wali ka hadlin waayo dowladda ayadaba kaws ah oo macnaha ra'iisul wasaare lama magacaabin waxaan maqlayaa maanta hadda aan runtii aan maqlayno qarax baa ka dhacay aad u weyn oo ilaa iyo 30 askari ay ku dhimatay iyo ka badanba sida la sheegayo ayaa magaalada Muqdisho ka dhacay eriyada aniga hadda ma sheegi karo oo hawlo kale iyo shirar kale iyo shaqadeedan ku jiray laakiin idaacadaha dhan way soo qoreen in askar badan oo ilaa 20-30 gaaraysa ay ku dhimatay waxna ay dhaawacay yihiin marka walaal dalkii waxa dowladda ay ka soo saartay ma jirto waxaad arkaysaa dowladii arrimo kale inay ku howlan tahay iyo sidii u soo laaba lahayd iyo sidii xilka u kororsan lahayd baarlamaan ha noqoto wasiirro ha noqdaan marka walaal dalku waxa uu marayaa baan isleenahay maanta meesha ugu xumeed buu marayaa aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaa dhammaantiinba waqtigiina adiga iyo جيلان الشيخ محي الدين يا أحمد وعيس ولبا هذه أدبار ذيك مهد علينا سيدة قروح تبضنا النوغلة سوقاب قادتين وبرنامج كيني تطبات كيو سياسة ويدين دادي هنا سي أنا قو لمع ساق الحاكي هل كان نقل سعوتين وراديو سومالوي لما صرت ولا الويلكم لما أنتي نويني مهد علينا أنا قلنا سيدة قروح ومكاقا مهد علينا حوالده مالسم وانا حوالده دقدق يا أمانة له ومهل كستوا جوكتان إهلدينا جارسينيسا لعقتادو درتان بلنتينونا ومالسم.c وحوالده مالسم مالسم مهل كستوا جوكتان بدكتينا مالسم أياتاغن